ورادن أذكارك دونتي waxaan ka dhoofay airport-ka Minneapolis إنه كنا متجري waxaan tagay airport-kii aadan cadde dabeetana toos baan u abaaray madaxweyne farmaajo inaan laba saddex su'aalood ayaan ka codsaday inaan weydiiyo isagoo doorashooyin iyo buuq iyo ku jira ayaan labadii su'aalood weydiisay labadii su'aalood baan markaa waan wada fadhiisanay aniga odagu markaa wada fadhiisanay su'aasha ugu horreysay waxaan weydiiyey madaxweyne dad badan baa yidhaha waa daacad dad badan baa yidhaha qabyaalad kuma dhaqmo waxaasoo dhan anigu uma socdo meeshaan u socdaa waxa weeye dadku khudbadahaada markaad khudbad jeedinaysid ma jecla markaad hadlaysid waad hashkadaysaa hadalladii ayaad qaar kala hilmaantaa mararka qaarkood haddaan tusaale soo qaato maalin dhaweyto 65,000 oo arday baanu bilaash wax ku barnay ayaad istirdhe waxaad tiri 65 arday ayaanu wax barnay mucaaradkii baa markaa qaatayoo 65 qura wax bareen 5 ay yiraahdeen adiguna markii dambe waxaad tiri arrinkaas waan xogaa waan ilduufay 65,000 buuha ayuu markii ugu horeysay ee ilduufana maaha madaxweynuhu waxaan ku yiri magacyada xitaa qaarkood abwaanada suugaanta iyo markaad ka hadlaysid waad khalkhaladaa maxaa ku waan waxa wuxuu yiri su'aashii kaga jawaabay isku dhamaash horta Ilaahay baa laga helaa arrinkaasi waa arrin basiida waaye sidee basiid ku tahay wuxuu igu yiri gobolada heesaha ma dhageystaa waxaan ahaa fanaaniinta gobolada waa bari mid laba kelmadood isku dar kara inta mikrofon soo istaago oo hadli kara ma jiraan fanaaniinta waan dib u eegay intii uu su'aasha weydiinay ayaan maskaxda kaga shaqaysay tolo hebel khudbadan kara may ka daa hebelna may laba eris kuma dar karaan okay buri may la qartataa haabaan qaar baa shigshiga soo damaad gar qaar baa hadalkooda aan hore u fahmayn sentence isku xidhan oo nin fanaan oran karayo aad buu yartay waaya wuxuu yiri marka ay heesaan ka war dib baan hadana u eegay awriya ka socod macaana oo kaas ka sii daran oo hebel baa ka sii oo heblaha ka sii daran markaas aan dhahayaa hebeladu waa bari xagga codku waa number 1 madaxweyne wasaas wuxuu yiri codkoodana waa dhigistaa aad baa jecesha khudbadoodana iyo hadalkooda ma jecel labadaas markaa ma wada shaqeynayaan aniga hadalkayga calow dadku iyay eegin ficilkayga kale iyo wanaagayga kale qaatib arrinka intaasaan kaga baxay waay waxaan ku yiri shirkii Djibouti berigii dhawada si timaadeen reer waqooyigu way soo diyaar garoobeen khudbado dhaadheer hadallo dhaadheer sharciga ma doonayno kan waan saxiix mayno sidee wuxuu jiray nin firfircoon khudbadaadii 2 minuut baad ku soo koobtay uma adeekeen wuxuu yiri meesha horta labada wafdi xagga daada isma la eekayn wuxuu ni waxaan dhashay 1961 magaalada Muqdisho ku dhashay aniga waxa iga umulisay buu yiri hooyadii markii hooyadii ka umulisay waxa hooyadii ka umulisay buu yiri doctorisa adna aadan maanta ka umulisay ayaga umulisay adna hooyadeedii labaad ee gacmaha igu saa dhabtay saartay marka adduunkayga miyaan la murmaa buu garbu sheegtay ونك ده قرب وشاكت أنا وانا تاريخها ما نقولين ماذا حنحقه واحد والله ما أدنى هالدم ماذا حين من شاه أي كله كله وياه وحنا سلمان قالنا وحنا الزرع أولي دلنا أي وزيرها وزير بوها كله وزير بوها أي وزير كحيان يدني ماذا حظو مركا رجع ده داسة لا مر بكرة ده لا مر بكرة وحنا كوري أدنى آذن iyo hadii ilaahay ku reeyay Salman gal niman de lafaca xad kale oo ay isku gadeeyeen maxaa u leeyahay mise doorka dama la imanaysa wuxuu ma noocaas anaga naga dhamaadeen ba qaraxay ku dhigay oo marka maxaa ku soo shaqo tagaysa ciyaal yar wax la isku hayaba aan ogeyn oo naga dhaqsada leh ayaa hada jeer meesha imanaya warbaad dhiiso ninkaan inta sakeeti hargeysa antay waxaan ka bilaabay isagana Muuse Bix waxaan weydiiyay nin su'aal ku saabsan dadku ay hadal hayeenoo waxaan madaxweyne Muuse waan la fadhiistay horta waa kan wala fadhiiday waxaan iri madaxweyne Muuse isdhexgalka shacabku sida waragtan
موسى شو هل دق بوح كم غلا isdhexgalka shacabkan weydiyo wuxuu igu yiri shacabku iyaga waaran ana jawaabtii baan garan waayay haye sidee waalayn wuxuu waalayn buuri anigu bloodyadan iyo dhulkan ay ka sheekeynayaan iyaga isku qabsada iyagoo isdacweynayeen noolay maadan aniguna kala wareegnaa hatta dhulba ma weydiin odayga wuxuu yiri su'aashaadu calaw waxay u socotaa buurta kala jeex buurta kala jeex ayaad ka wadaayo hargeysa dacalkeeda shishay oo dadku ay leeyihiin Muuse Biixi iyo family-giisa baa naga qaaday ama qoyskiisa arintu sidaa ma aha waxaan ku yiri waxa loo xis sandaqada cagaf mariya ninkii daari wax ka yar dhistay cabaar been maxkamadda wax la raadinayna ha ka duminina meelana saxan sameyn buu horta waxa arkay madaxweynaha inuu dhul ku qafinay waxaan markaa su'aal labaad si coronavirus-ki xaqu maraya baan wuxuu yiri wallahi ilaahay ma hadiyo alxamdulillah anu beerti ismaan dacas ayaan ka galayba video chat iyo video call iyo hadii ilaahay ku reeyay iyo zoom ayaan wadanka ku xukmiyay hore muuse nin naxayma dabeetana waan ka tagay waxaan sii salaamay adna aadan iyo Salman Gaal iyagana salaam baan la sii maray su'aalaha iyaga aan weydiiyay barnaamijka soo socda ayaan rabaa inaan ku soo qaadano noo magaalada Hargeysa ahayd ayaan waxaan ka raadiyay siyaasi weyn oo indhoweed aan maqal oo aan siri Alle ma laha adag ku jira Cali Khaliif Galeer Cali markaa raadiyay ma waayo islaama waxay sheegeen inuu coronavirus arabsiyo iyo gabilay inuu dadka ku wacdiyo halkaas ka baalkaysta de markaa ana waxa iga ninka dhakhtar buu noqday ونك على خليفة قبلي با انتو halka duubtay ayaa video yar balaj ayu dadku wuxuu ka waaninayaa wuxuu leeyahay